السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتور عبد الله حمد موسى oo ka shaqeeya Masar hospital ku yaala xanuunkan COVID-19 oo hadda caalamka farabaas ku haya waxa aan rabaa inaan dhowr su'aalood oo ku yaala website-ka WHO aan wax iska weydiino oo runtii mudan inaan wax ka ogaano qofka maxay yani riskiga oo ah ama misan khatarta ugu jiraan xanuunkaas ku dhaco waa kee waxa horta runtii qofka uu ku dhici kara xanuunkaasi all ages cid kasta oo ku dhici kara waxa ku dhici kara dad yar dad weyn waxa ku dhici kara qof maxay dhalinyaro ah qof maxay yani aad u weyn qof meel kasta uu joogo caalamka uu ku dhici kara waxa laakiin uu khatar gelin kara naftooda dadka waaweyn dadka xanuunada aadka u culus qaba dadka dawooyinka culus qaata dadka maxay xiiqda qaba dadka macaanka qaba dadka sigaarka sida xun u caba sideeban maxay uga gaashaamanaya xanuunkan horta wuxuu ku faafaa maxay wixii magaranaysa qofka ka soo baxaya sida mesela qufaca soo raacaya wixii hindisidiisa soo raacaya wixii duufkiisa faraha iyo waxaas uu ku taabtay soo raacaya marka viruskan saas ku gudba marka waxa kala gudboon in aad gacantaada si joogto ah u maydho gacantaada inaad biyo aan maxay meel ku jirin laakiin biyo shubmay aad ku maydho gacantaada iyo saabuunta iyo maxay wixii kale sanitizer maxay oo maxay yani gacantaada infection ka saari kara inaad taasi joogtay sorto way ko inaad yani aad gloves xirato markasto meel u baxayso si aad hadad meel taabato aad ma dhow sankaaga iyo indhahaaga aad ugu taaban karin in aad afkaaga soo xidho sanka ku soo xidho maxay mask waliba mask N95 hadad awoodiso si maxay qof haduu kugu hindhiso ama meel meel xiran aad gasho hadii uu marka hawada ku jiro si maxay aanu ku soo gaadhin waay su'aal kale meesha ku jirto waxa weeye hooyada maxay xanuunka qabtaa ma jaqsin karta ilmaheeda wax dhibaato kuma jirto laakiin waa in ay ka ilaaliso farihidaasi waxa seen ilmaha sankiisa iyo indhihiisa waxa gaadhaan sidii caadiga ah isla yaqaanay maxaa kula gudboon hadda dareento in xanuunkaas qabto oo lagu yaqaano madax xanuun iyo jirka oo burbura iyo qufac qalalan iyo laabto ku olasho iyo cunahaas oo xanuuna iyo xumad saayidi waxa soo dadku aragto maxaa kula gudboon waa inaad horta quarantine iskiliso oo aad joogto meesha aad joogto cidna aanad la taamulin haddaad laakiin aragto in noloshaadu khatar sii geliso laazim waa inaad dhakhtar ka tagto su'aal kale meesha ku jirta maxaa dadka qaarkood maxay xanuunkan ugu badan yahay bulshooyinka qaarkood haddii Soomaalida in ogaano uu ku badan yahay waayo ma qaadano measurementka la inoogu talagalay ma qaadano gabagabadii waxa aan rajaynaynaa in qof kasta meesha joogo fadhiyo oo iska ilaaliyo xanuunkan in aanu maxay qaadin inta uu baxayo because waa viruskaasina waxa uu bixi karaa iyadoo la yareeyo contactiga iyo habka uu ku baxayo way 14 cisho ayuu qaataa inuu qofku maxay xanuunkan kaga soo baxo marka taas awgeed waxa dareemaysaa in uu xanuunkan ku jiro dad fara badan oo aan waxba ka muuqan dad fara badan baa maxay xanuunkan iyagoo qaba sida laakiin ma dhow ka bogsanaya iyagoo aan cidna maxay aanay ogaan in xanuunka qabeen ama iyagoo dhowda aan is ogeyn xanuunka qabeen marka markasta waxa kula gudboon in adigu aad very active aad ku haato inaad qaadato measurements ama mesela rules loogu talagalay in maxay xanuunkan laga hortago oo ah inaad personal hygiene kaaga ilaaliso inaad diet kaaga ilaashato inaad caafimaadkaaga ku dadaasho in aad halka joogto aad laazimto oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam markii daawan soo baxay qof kasta bartu joogay waa kii maxay lagu xiray marka taas macnaheedu wax weey gurigaaga markaad ka baxayso in aad wax daruuro ama wax kale aanad bixin cidii maxay aanad garin inaad la tacaamulin cidii aad salaamayso aad maxay meel fog ka salaanto cidii joogta meel fara badan oo isku buuqsan inaad adu dhex gelin wixii immunity-ga hoos u dhigay sida mesela soo jeedka badan laazim inaad ka fogaato inaad cuntada soo balance garayso inaad gacantaada si joogto ah u maydho waxa ugu dambeyn aan sheegaya insha Allah hadii qof maxay uu dareemo xanuunkan in uu maxay aanu ka baqan inuu sheego dadka ku yiraahdo anu xumad baan leeyahay ay la tacaamulina waayo xanuunkan ma hadee yani HIV AIDS ma yani ma xanuun ay sharaftaada u dhimaya waa xanuun yar qof ayraad ku qaaday mesela yani meel maxay meel qaldan martay oo dadana xanuunkaas kale kugu dhacay ma waxaan may qofna maxay ka caban inuu oran maxay wax weey xanuunkii baan qarsanaya oo aankan dadkii aanu maxay qaban dhex joogaya dad dareento in xanuunkan uu ku hayo mesela oo aad dareemayso xumad inay ku hayso ama aad dareemayso jirku inuu ku jijibin yahay oo aad u daalan tahay
yersug waxay qaadanaysaa 2 week iska joog gurigaaga ha soo bixin umada ka fadhi hadii kale maxay waxaad qaadinaysaa umad fara badan qaadinaysaa xanuunkaasina adigu kugu soo noqonaya mar labaad marka qof kasta wuxuu kaga qaadan karaa inuu uu bartiisa fadhiyo oo uu yareeyo xarakaadka dad badan oo Soomaaliyeed baa jiro oo maxay meelahaas ku soo baxa wallahi waxa weeye arin aan aadna inuu anfacayn cid kale anfacayn bulshooyinka la nool lahayna runtii yani ku noqonaya wax fool xun oo ay nagu arkaan waxaan dareemayaa bulshooyinka Europe in maxay ay Soomaalidu xoogaa magacooda hoos u yar dhacay iyadoo la ogaaday cases fara badan inay ka soo baxeen dhexdooda taasina waxa loo aaneynaya in aanay qaadan ruleska loogu talagalay baakan lagu control masartan aan joogno qudheeda Soomaalidu aad uma qaato ruleska loogu talagalay lagu control oo marka maxay yani quarantine la geliyo umada la fadhiisiyo somehow waxaad arkaysaa dadkeena Soomaalidu inay wali soo socono inay wali isu wareegino arrinkaas waa arrinka yani loo baahan yahay meesha laga saaro oo aynu dadka la mid noqono viruskani waxa weeye virus maxay joogaya maxay ugu badnaan ilaa 2 bilood soo socota marka qof kasta ha sabro qof kasta maxay ka qaato wixii laga qaadanayo yareyntiisa iyo joojintiisa ilaahay naga dul qaado ilaahay ma barayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Dr. Cabdullaahi Muuse oo idinka salaamaya Masar